Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Mucaawiye. Ku soo dhawaada mid ka mid ah casharada maanta aan ku soo gudbi doono boggeena YouTube-ka. Qodobka maanta ayaa waxa uu noqonayaa casharka koowaad ee isticmaalka wadooyinka halka jiha ah ama halka dhinac ah ee gaadiidka lagu kaxeeyo. Haddaba maxaynu ka naqaanaa wadooyinkan halka dhinac kaliya loo socdo ee gaadiidku aysan labada dhinac u socon karin ama gaarigii maraya uusan dib ugu soo laaban karin. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. waatahay isku soo noqod wanaagsan calaamadan aan ka hadlayno ama aan ku soo sheegnay barnaamijkeena bilowgiisii ayaa mar walba horta micno ahaan waxay u taagan tahay ama ay tilmaantaa jid hal qayb ah maadaama calaamadda ay ku sawiran tahay hal fallaar haddii ay tahay fallaartan mid toosan micno ahaan waxay ka dhigan tahay in jidka aad ku socotid ama jidkan hortaada ah ee toosan uu yahay jid hal dariiq ah oo baabuurka uusan dib ugu soo laaban karin ama gaari kale oo garabkaada soo mari doonaa oo kusoo dhaafi doonaa uusan jirin okay haddii ay jirto mid noocan ah oo hal fallaar ah iyadana ama dhanka midig oo u leexanaysa oo kale uu kuu soo muujiyo micno ahaan waxay ka dhigan tahay dhanka midig waddadan u leexan doontaahi waa wadda hal dariiq ah oo gaarigaagu uu geli karo toosna ugu socon karo ilaa iyo uu ka helo waddo kaleeto oo weyn uusan dib ugu soo laaban karin oo ay tahay wadda hal jiha oo kaliya loo isticmaalo sidoo kale iyadoo waxaa jirta mararka qaar haddana dhanka bidix kaasoo qaban karta calaamad noocaan ah ama dhanka bidix inaa ku tilmaamaysa taasoo micno ahaan haddana ka dhigan in dhanka bidix ay kaa xigto wadda sidoo kaleeta ah waddo hal jiha ah oo gaarigaaga haddii uu ku leexdo uusan dib ugu soo laaban karin ilaa iyo dhinaca kale uga baxo ama jid kaloo weyn uu ku dhaco taas waa isla garanay mar walba fallaartan halka fallaar ah ama halka nooc ah waxay noo cadaynaysaa hadday midig u leexanaysa ama bidix ama toosba haddii ay tahay waxay cadaynaysaa in dhabahaas uu yahay dhaba hal jiha oo kaliya loo socon karo oo aan labada dhinac loo socon karin waa mahadsan tahay muhiimadda marka waxay tahay maxaa jidadkan halka jiha ah sidoodaba loo sameeyey maxaa laba jiha looga dhigi waayo ujeedka jidadkan loo sameeyey ayaa ah qodobka koowaad in zaxmadda wadooyinka waaweyn ee magaalada aysan siyaadan noqonin si taas looga baaqsado dadka degdegsanna ay arrimahooda iyo muraadkooda iyo meesha ay doonayaan ay si dhaqso ah ugu gaaraanna loo sameeyey jidadkan halka jiha ah maxaa yeelay jidka markuu yahay hal jiho ama jid hal dhinac oo keliya ama one way waxa loo yaqaano markuu yahay way adag tahay inuu zaxmad noqdo maxaa yeelay gaadiidkii oo dhan way isdaba socdaan hal jiha ayay u socdaan mana jiro wax zaxmad ka dhigi karayo ilaa laga gaaro ama uu ku dhaco jidadka kale ee waaweyn ee labada qayb ah ama highway waxa loo yaqaan marka maadaama aan ka soo hadalnay ujeedka loo sameeyey jidadkan waxa ugu weyn ay tahay in dadku si degdeg ah ama dhaqsi ah ay ku gaaraan goobaha iyo meelaha ay doonayaan ama ujeedooyinkooda iyo danahooda ayaa qodobka koowaad calaamadda aan sheegnayna waa calaamadda mar walba ay muujinaysa in jidka aad ku socotahay uu yahay jid hal way ah ama hal dhinac u socda saa daraaddeed calaamadahan waa waxyaabaha ugu muhiimsan sababtoo haddii aad gaari kaxayn garanayso isla markaana aadan garanaynin calaamadihii iyo shuruucdii wadooyinka runtii wax micnaha oo garashada gaarigaasi aad ka garanaysaa ama kaxaynta gaadiidka ay ku fadhiisa ma jirto sababtoo wax walbaahi waxay leeyihiin shuruuc iyo ujeedooyin lagu hago isla markaana lagula dhaqmo ma jiro wax la barto oo aan sharci iyo nidaam iyo qaanuun lagu haga aan lahayn saa darteed waxaan filayaa in aad fahanteen inta aan ku kulmayno mawduuca xiga iyo calaamadaha kale ee soo aadan haddii ay booyne uu raalli ka noqdo waa Mucaawiyo idinle sidaa iyo nabadgelyo.